fadhigii sideedaad ee shirweynaha afartii sanaba mar la qabtay ee looga arinsado arrimaha yareynta khataraha masiibooyinka oo maalmahan ka socday magaalada Geneva ayaa ajandayaasha madasha waxa qayb muhiim ah ka ahaa dood cilmiyeedyo ay si firfircoon uga qayb galeen gudoomiyaha hay'adda Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle iyo wafdi uu hogaaminayay doodahaasi waxay isugu jireen mowduucyo muhiim ah oo hoosta ka xariiqaya muhiimadda adkeynta awoodaha bulshada ka hortagga iyo ka soo kabashada masiibooyinka dood cilmiyeedka koowaadi waxa uu ku saabsanaa sida ugu fudud ee dawladuhu u dhisi karaan nidaam dhaxalgal ah oo bulshada ku dhiirigelin kara mid uu adkeysan kara afooyinka isla marhaantana si degdeg ah uga soo kaban kara waxyeelada ay masiibadu keento waxa kale oo madasha laga jeediyay doodo kale oo muhiim ah oo ay kamid ahaayeen sida ugu habboon ee digniinaha halista ah loo gaarsiin karo bulshada kaalinta haweenka la xiriirka ka qaybgalka dadaalada lagu yareynayo khataraha masiibooyinka si loo xaqiijiyo in cid walba ay ka qayb qaadato wax ka qabashada khatarahaasi doodii ugu kululeyd ee madasha intii ay socotay waxa ka wada qayb galay gudoomiyaha hay'adda Sodma iyo Cabdikariin Yuusuf Caynte oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee arrimaha sugnaanta cuntada iyo isbeddelka cimilada isla marhaantana ah la taliyaha gudoomiyaha hay'adda Sodma ee nidaamka digniinta masiibooyinka doodanina waxay ku saabsanayd sida istiraatiijiyadda caalamiga ah looga hortagi karo wadamada soo koraya ee ay ka jiraan xasaradaha dagaal iyo isku dhacyo sababa amni darro iyo nuglaansho bulsho